ma tabaraan guurnaa mase taakaan guurnaa uu yidhi ninkii taaka iskuma hubno ee tabar aan guurno maanta waxa aan samayn karno ayaan samaynaynaa mar walba baryahaas horena wixii aan samayn karnay ayaa la soo sameeyey maantana wixii aan samayn karno waxa ugu fiican oo suurtagalka ah yaan samayn doonaa dalkeennu siyaasadda meeshiisu ka joogaa shuruucdii iyo nidaamkii cayaarta doorashada lagu geli lahay waa noo samaysan yihiin laakiin ayaguna sidoo kale waxay rabaan in la waafajiyo cahdigan cusub iyo duruuftan cusub sharciga doorashada waa yaallaa sharciga xisbiyada waa yaallaa sharciga guddiga doorashada waa yaallaa laakiin duruufihiina waa isbedeleen waqtigiina waa isbedeleen dadkii mas-uuliyiinta nooga ahaa qaar in badan oo ka midna waqtigaa ka dhacay so inaan dib u eegno oo aan marka shuruucdii dib u habeno ilaan shuruucdu waa ognaha aayada munazala ma ahayne waxaan maslaxadeenna iyo danaheenna aan u samaysanay ahaayeen inaan dib u eegis marka lagu sameeyo oo ayagana la waafajiyo duruufta dhabta ee maanta jirto dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dowladda federaalka ah waxay rabtaa in fursad loo siiyo in ay qof iyo cod aado waa la daahay waa laga dhacay waa la yeelay dad baa meel iska joogayo kuwa meel ka dhacayo kuwa waxaasoo dhamme waa wax shaqaa taalo shaqadaasaa qabasho rabto inaan ku wada mashquulno shaqadaas waaye nidaamkii inaan ku mashquulno xeerarkii iyo wixii ku habboonay aan dhammaystirno maxaan ku idhaahdaa dadkii aan muxuu ahay wanaag iyo waxa soo socda u sheegno laakiin haddii aan u daarno muxuu ahay cabsi war haddii shalay dad yar ay go-aan gaarayeen ay noo shaqaysay maanta dad badan ay go-aan gaarayaan sidii shalay ay noogu shaqaysay si ka fiican ay noogu shaqaynay bas waxaan u baahanaa inaan aamino dalka doorashuu aadaya waa qof iyo cod dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa codaynaya intiiba la gaari karo oo fursad loo helo waa la wada gaarayaa boqolkiiba boqol ma lihin laakiin intii hore dadka noo soo dooro jirtay in ka badan oo ka badan oo ka badan aad iyo aad uga badan ayaa fursad helaysa ay ku codayso ku kala doorato dadka taas mabda'aas waa arintaas waa naga mabda' ka noqosho male dib uga dhicid iyo maxaan ku raayay ka tanasulidna male dadka Soomaaliyeed mustawa kasta oo joogaan meel kasta oo joogaan waqtiga la joogo iyo maanta horumarka dalka uu soo sameeyay suurtagal ma aha in uu xukumo nin aanay dooranin ayaga mabda'eenu wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed waxa u talinayo nin ay cod ugu rideen sanduuq hadduu ku xumaadana ayaga iskale hadduu u fiicnaadana ayaga iskale hadduu ku xumaado ha sugaan waqtiga la sii waqtigiisa sugaan ha iska bedelan biri hadduu u wanaagsanaadana biri ha soo ceshadeen ha ugu soo celiyo waa wiil fiican waa gabar fiican waa ku ceshanayna hadhaan laakiin waxaan rabaa yaan dadka la khaldin shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego yaan been la idin sheegin ma dhici karto intay ka dhacday nimaa jaaka tolanayo nimaa war waa la soo tolo waay shalay kuwa jira soo tolo waay xukunka xoogaa lagu raadiyo qorayaa lagu raadiyo dhiigaa loo daadiyo waa lagu heli waay inaan wada hadalnoon heshiino markaan gaarnay 135 oday adeer reebel la yiraahdo oo ugaaska cideena suldaanka cideena garaadka cideena malaaqa cideena ayaan dhahnay talada noo gaaro waa ku heshiinay wixii uu noo gaarayna waa aqbalnay fiiri maanta markii ka dambeysana sidoo kale maantana sidoo kale